قضب كأف سدحات واحد شيكتي قبلك بل سيدي مركب بلشو لوga bedeli karaa gobolka macna gobolkii oo kale waxa la yiraahdaa bili aadanku sidiisaba waxa wax bedeli karaa waa qofka umada horjooga oo ah maanta shakhsi meel iska fadhiya ama qof maqaaxi fadhiya ama qof meherad haysta umad ma bedeli karo aad ilaahay qofkan wuxuu jaanis u siiyay inuu umadan maamulo gobol ma yar aad waa inta soo degma hoos imaada aad markaad jaanis u heshay inaad gobol maamusho waxa weeyaan gobolkan aad maamulaysa nin baad xilka ka qaado lagu bedelay adigana berri waa lagu bedeli sax maxaad maanta umada ku soo kordhisay oo lagu xasuusan karaa taas baa meesha taala inta badan Soomaalidu markaad eegto meel kasta ay joogto degmo kasta ay joogto gobol kasta ay joogto nin ka fikiri ma jiro waynu dhalanaa waynu dhimanaa aad maxaa u dhaxeeya inta nolol baa ku jirta nolol baa u dhaxaysa noloshan maxaa lagu talagalay waa inaad shaqaysato aakhiradaadi u shaqayso umadana aad u shaqayso waliba qofka mas'uulkii muxuu ka fiican yahay waa qofkan keligii meel iska taagan ilaahay jaanis u helay inuu umada dhan xukumo uu hogaamiyo sawir wanaagsan u noqdo qofkaasi sawir qofkaasi maanta ardayga iskuulka dhigtay muxuu ku fikirayaa wuxuu ku fikirayaa hadduu arko gudoomiyaha gobolka oo aan nin karti badan nin walba wuxuu rabaa inuu noqdo hebel aad sida maanta aad arkayso hebel waa laacib kubaddu ku fiican yahay صح hebel waa sheekh waa caalin maanta waxaad arkaysaa culimada Soomaaliyeed aynu haysano intaasoo qof oo ku fikiraya inuu noqdo sheekh hebel sheekh hebel waa chance uu ilaahay siiyay uu sheekhu ka faa'iideystay waa laacib helay xirfad kubadeed oo isna ka faa'iideystay muxuu noqonayaa markaa bulshadii calaamad buu noqonay tusaalaan ku sheegay maanta ragga lagu daydo ama ha noqdo siyaasi weyn ama ha noqdo laacib kubadeed ee meel joogay ummad matalay maxaa laga ilaaliyaa maxaa loo ogolin muxuu ogoliyay waa muraayadii ummadda ninkaasi ummadda khamri kuma hor cabi karo sigaar kuma hor cabi karo dar qaawan ma xidhan karo hadda waa gaal maxaa loo diidan yahay intaas oo dhan ummadaasoo dhan baa ku wada dayanaysa group baa ku xidhan ubixii wadankana ku xidhan ninkan adigoo maanta markaa islaam oo ilaahay wax walba uu inoogu sheegay quraankii iyo xadiiskii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu yaalo oo inuu wax walba in afartii khaliifadii aynu ka dhaxalno Umar aynu ognahay oo Abu Bakar aynu garanayno oo mar walba taariikhdoodii laynoo akhriyo maxaynu u bedeli weynay markaa bulshadeena nasiib xumo waxaan anigu qabaa dadkan loo dhiibay xilka maaha dad ku haboon shakhsiga markaa gobolka loo dhiibay dad ehel u ah ma precis haduuna qofkani lahayn waxaan la yiraahdaa mool ama tiigsi ama han waa inuu kaba soo qaad aabata aad caruur baad leedahay waa inaad ku fikirto inay caruurtaadu ka fiicnaato caruurta kale ninka degmada haystana maxaa laga rabaa in degmadiisu ay ka wanaagsan degmooyinka kale si uu u noqdo gudoomiye gobol aad ninka gudoomiyaha gobolka maxaa laga rabaa inuu gobolkiisu ka fiicnaado gobolka kale si wax ka sareeyo loogu dhiibo si uu beritoole u noqdo madaxweyne for example Erdogan muxuu ka soo bilaabay waa maayarka Istanbul bo aad maantana halkuu taagan yahay dhibaatada misleedahay marka Soomaalida dhibta haysato waxa weeye aasaaskii kama soo bilaabaan oo adigoo kale oo hadda maanta halka joogaba wasiir lagu magacaabaya ama madaxweyne laga dhigaya oo aanan hore gudoomiye degmo soo noqon gudoomiye xaafadeed soo noqon gudoomiye gobol soo misdhii karna taas waa la oran karaa lamana oran karo waa la oran karaa oo waxa weeyaan shakhsigan marka hore xilka loo dhiibayo baaritaan kuma sameyn muxuu yahay muxuu qabtay muxuu soo bartay halkuu ka imiday halkuu u socdaa inagoo intiiba aynanu ogeyn talabaad ogsoonow marka maanta xilliguu dhiibayo waxa qurux badan qofka xilka kuu dhiibay waa inuu marka hore ku akhristo ileen ummadan buu mas'uul kaaga dhigaa ummadan uu mas'uulka kaaga dhigayo uu kuu dhiibayo maxaad isaga u soo celinaysaa maxaad si ummadda siinaysaa la isma weydiiyo waa hebel halkan aan isku baranay waan isnaqaanaa waa nin daacad ku noqon kara waa u dhiib waa taa qofkan shakhsiga markaa ku imiday magac ama aqoon garasho
de waxa ummadda u keeni karaa ban iska jira shakhsigani wuxuu cunaa cashuurta ummadda laga qaado intay doontaba ha la ekaato caawin haddii degmada ama gobolka la siiyo intay doontaba ha la ekaato laakiinse maanta markaad aragto xaqiiqda aad eegto shakhsigaasi markuu meel tegayo ama meel booqanayo ama uu meel tegayo waa la horboodaya ka leexda beritoole xilkii baa laga qaaday inaga qariya baa laleeyahy why eeg ummaddu waxa qurux badan war shakhsigani shalay adigu kuu shaqaynay maantana adigu kula mid yahay maanta waa shacab shalayna kursi madax buu ahaa shakhsigana maxaa laga rabaa markaa war maanta waxaad tahay madax beri shacab baad noqonaysaa wax wanaagsan ka tag marka precis ta inaga maqani markaa waa taa okay tan su'aasha qodobka saddexaad waad ku dheeraatay baan u malaynayaa adoo soo koobaya qodobka ugu dambeeya ee afraad muxuu yahay waa waxa tiri waa dawladda baa dadka laga bedeli karaa waa dawladda dadka waxa la yiri ilaahay quraankiisu ku sheegay ilaahay qofna ma bedelo isagoo isbedela mooya aad iyo aad bulshana lama bedelo iyadoo isbedesho mooya waxa weeyaan maanta ninka madaxweyne ka ameel markaad eegto haddaad Yurub eegto haddaad eegto Mareykan haddaad eegto adduunyada maanta dawladaha leh madaxweynuhu markuu meesha imaado maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay madaxweynihii ka horeeyay muxuu qabtay muxuu ummadan u qabtay laakiinse inaga inta badan waxa la sameeyo ma taqaana wixii uu qabtay isaga baabii magacii hore tirtir magacaagu ha noolaado fikirka halka laga keenay ma taqaana حتى هدو وضد سو وضد ولا بربرني ما halka laga keenay ma taqaana fikirka waa Mareykan eeg Mareykan ku laakiinse wuxuu leeyahay nidaam adag oo dhisan oo habaysan imika Trump markuu Biden qabsaday muxuu sameeyay wax kasta oo uu Trump baabiye soo celiyay shalay Soomaalidu may tagi kareen Mareykan ama Yurub joog ama Aasiya joog ama dadka interview iyo waxba laga qaadi karin mar haddaad Soomaali tahay waakii ama Swedish xitaa haddaad tahay maxaa tahay Soomaali aad iyo aad lama tagi kareen maanta laakiinse muxuu sameeyay kii kale in la tagi karo laakiinse nidaamka iyo sharciga ummadda wadanka gudihiisa lagu dhaqayo waa sidiisi waxba isma bedelin inaga laakiinse maxaa la sameeyaa saad sheegayso wadadii xitaa la burburinaya si magacii qofkii hore loo tirto maxaan u baahanahay marka waxaynu u baahanahay leader raba inuu ka taga magac talabaad midna hal la ogaado waxa weeyaan saddexda qof ama saddexda shay ee qofka bili aadanka imaanta oo jannada ku gali kara maxaa kamid ah waa mas'uul caadila وku jira awlaad saalax صح cilmi naafac صح inaad wax barato ummadda wax barto waxaad ummadda bartay beritoole way si waa wax ku yaal waxa lagu yiri sadaqatul jaariya bix maxaa lagu yiri maanta ninka madaxweynaha ee maanta ilaahay jaanisiye inuu maamulo cashuurtii ummadda ee waliba wax ugu qabta ka war hadda ma wixiisi wuxuu isagu shaqaystay ma waa wixii ummaddu u dhiibatay wixii ummaddu u dhiibatay hadduu si fiican wax ugu qabta ka war ifii aakhiraba qof liibaano noqon laha qof aynu ku dayno noqon laha maanta Soomaali meel walba ay joogto daawo Erdogan baa maxay u taageersan maxay u rabaan koo waa islaan laba ayuu wax u qabtay inaga waxba inoo qaban dadkiisa wax u qabtay eeg waa jacayl aad iyo aad maxaan rabnaa marka inaga waxaan rabnaa qofka leaderka ee maanta Soomaali ilaahay jaanisi ilaan umadu leader ma wada noqon karto waxaan xagga Alle ka timaadaa aad iyo aad ilaahay maanta hadii adoo halka fadhiyo oo kuugu tala galay inaad wax noqoto hogaamiye noqoto kursiga ku fadhiisato waa jaanis ad umada dheerta maanta dadkii ka faa'iideysan lahaa jaaniska noocaas ay heleen ila noloshu way gaaban tahay ma nin baa ballan qaadaya maanta inuu gaariyo saacad kadib inuu casr tukanayo inuu maghrib tukanayo inuu bari soo toosayo maxaa lagu dhahaa habeenkii markaad seexanayso war qof walba intaan lagu xisaabinaysa xisaabi laakiin maxaan u nool lahay sidii dad aan dhimanayn aad baad u mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi aanu diradda aanu ku saaraynay sida dadka Soomaaliyeed loo bedeli karo waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noo daawataan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo channel-ka Bulqaas Media naga ilaawin inaad subscribe like iyo follow aad soo tiraahdo haddii si aad tahay macmiil soo noqday naga ilaawin inaad muuqaalkan aad share garayso oo dad badan aad gaarsiiso
si ay uga faa'iidaystaan wixii tale iyo tusaale ah iyo weliba ra'yigaaga ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commenteska aad ayaad u mahadsantihiin